حيل كرا قنصلية هرجيسة يكون يلا يقدروا ما حيل كرا وايد ده كمان أرميو دولة حلوية هاي ضد يحكم كأجو إنه شلية حلوية هاي aan ku bilownay maamulka Puntland ayaa qoraal rasmi ah oo soo saaray waxa uu ku gacan sayray go'aankii dowladda federaalka Soomaaliya ay ku xireysay qunsuliyadda Itoobiya ee ay ku leedahay magaalada Garowe. Madaxtooyada Puntland ayaa qoraal ay soo saartay waxa ay ku tiri dowladda Puntland iyo dowladda federaalka Itoobiya waxa ka dhaxeeya xiriir soo jireen ah iskaashi qoto dheer oo ku salaysan mid dhaqan-dhaqaale amni iyo isku socodka bulshada. Puntland ayaa ku eedeysay dowladda federaalka Soomaaliya inay laashay dastuurkii xaqiijinayay isku haynta ummadda iyo dowladiska Soomaaliya sida lagu yiri qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Puntland. Go'aankii ka soo baxay magaalada Muqdisho 4tii bishan Abriil 2024 ma ahayn mid loogu daneynayay maslaxadda ummadda Soomaaliyeed ee waxa uu ahaa mid ku salaysan cadaawad xin hagardaamo lala daba joogo shacabka Puntland laguna majara habaabinayo nidaamka federaalka ee Soomaaliya. sidaasi waxa uu ku dhignaa war-saxaafadeedka ay soo saartay Puntland. Haddaba waxa ay dowladda Puntland cadaynaysaa ayaa lagu yiri in danaheeda ay kala macaamilayso wadamada dariska ah beesha caalamka iyo dhammaan daneeyayaasha arrimaha Soomaaliya isla markaana go'aanka xiritaanka qunsuliyadda Garowe uusan ahayn mid Puntland quseeya. Qaraarkii shalay ka soo baxay golaha wasiirada Soomaaliya ayaa waxa lagu yiri laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 4 bisha Abriil 2024 dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay xirtay isla markaana ogolaanshihii howlgalka ay kala laabatay qunsuliyadihii Itoobiya uga furnaa magaalada Garowe iyo waliba magaalada Hargeysa. Dad badan ayaa waxa ay isweydiinayeen haddii ay ka hor yimaadaan Somaliland iyo Puntland in la xiro qunsuliyadahaasi cidda xiri doonta. dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ugu suuro gali doonto in qunsuliyadahaasi ay xirmaan waxaana loo qabtay in muddo 7 gudihiisa lagu xiro labadaasi qunsuliyadood. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale amartay in 7 gudihiis dalka ay uga baxaan dhammaan diblomaasiyiinta Itoobiya ee ku sugan gudaha Soomaaliya. diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha dowladda Itoobiya ee ka howlgala qunsuliyadaha ka furan magaalada Garowe iyo Hargeysa ayaa waxaa lagu amray inay dalka ay ka baxaan muddo 7 gudihiis. qaraarka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in diblomaasiyiinta dowladda Itoobiya ay u hoggaansami waayeen qaraarkan ay galayaan xadgudub ka dhan ah qarannimada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya lagana qaadi doono tallaabooyin dheer iyo waafaqsan xeerarka diblomaasiyadda caalamka sida lagu yiri qoraalka ka soo baxay shirka golaha wasiirada. dhanka kale qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu amray safiirka Itoobiya Mukhtaar Maxamed Waare inuu dalka uga baxo 72 saacadood gudahood. sidoo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Puntland oo waraysi gaar ah siiyay idaacadda VOA ayaa eedeyn culus kala dul dhacay dowladda federaalka iyo waliba madaxda hadda xilka joogta. waxaana ka hadlay in madaxweynaha hadda xilka haya uu dastuurkiina laalay haddana uusan ahayn madaxweyne Soomaaliyeed. Soomaaliya waxay tiraahdaa habar dhari weyday aleela ku waaratay dowladda federaalka fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho aan xafiis dowladdu leedahay kiiloomitir dhinac uga bixi karin oo ajnabigu ilaaliyo iyadoo dalkii ku guul daraysatay inay ka saarto xadjirka inay dalka ka saarto inay dalka maamulkiisa isku furto inay dowladnimadii hirgeliso inay dowladnimadii dadka Soomaaliyeed iyo ammaankoodii ballan qaado caasimadda ku noolaa inta kale iska daayay inay u soo gudubto status nabad ah oo 10 kiiloomitir oo nabad xukuma oo iyagu mas'uul ammaankooda ka oo dhaqaalahooda ammaanka oo adeega bulshadooda ay siiyaan ammaanka inay u soo talawdo waxa weeye waa geed sarawaab weeyaan waxa weeye in gubta waa hoosta la xasan ma xiri karo qunsuliyadaha Hargeysa iyo ku yaala iyo Garowe ma xiri karo waayo de kama arrimiyo jurisdictionkiisa kuma jirto sharciyadu hayso dowlad waxa lagu yahay dad iyo xukunkaagu inuu fulayaa lagu yahay xasan xukunkiisuna ma fulo dad iyo dal lama hayo caasimadii magaca ku yaalu jooga oo ay ajnabi ku yihiin dadka Soomaalidu ajnabi ku ilaaliyo oo lagu qaxinayay joogaan sharcigiisa meel la kama fulo. dowladda federaalka waxa federaal lagu wada ahaa oo dadka sharciga u dhaxeeyay dastuurkii ku meel gaarka ah waxa dastuurkii waxa laalay madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud baa laalay miduu isagu leeyahay buu qortay
waa uu dhamaaday nidaamkii dalka isu hayay wuu dhamaaday ciise abdiin muuse abdiin Puntland waxay aaminsan tahay oo la shaqaynaysaa ciidii Soomaaliyeed oo kasta oo aaminsan kuna shaqaynaysa dastuurkii ku meel gaarka ee August 2012 la ansixiyay sharci ka dambeeyo ka aqoonsan tahay ma jirto hay'adaha federaalka ma aqoonsana sida dastuurka federaalka qodobkiisa 142 uu qorayo sida qodobka afraad ee dastuurka Puntland uu qorayo waxa sharciya inta la iswaafajinayo dastuurka dawladda federaalku ay leedahay dastuurada dawladaha xubnaha ka ah ay leeyihiin afti dadweynaha lagu ansixinayo state kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu haysto xaqa dastuurkiisa siinaya sida daraadeed dastuurka yaga nafaraya dawladda federaalka nafaraya inaanu isu maamulo inaanu dawlad madax bannaan nahay xaydaabkii dawladnimada Soomaaliyeed waa ku jira Soomaalinimadii inta la isugu soo noqonayo laakiin kuma jirno xaydaamka xasan ee uu dawladnimadii kaga baxay kuma jirno xaydaamka xasan laakiin xaydaamkii Soomaalinimada ku jira daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa warbixintan kooban ee aan ka diyaarinay falcelinta ka dhalatay go'aankii ka soo baxay golaha wasiirada Soomaaliya ee ay shalay soo saareen taasi oo Puntland ay si adag uga jawaabtay wixii aragtidaada ah fadlan daawade commentiga noogu reeb